السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيريور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسيري أنا أكو ياري. هيا. ودحيلات كهرت وارد ماضي أنا قال لي قبت الدور شوينك. واقرت. ولا عليه إن حالي وحال الله اللي لبدي نين أمشان وقف كديريد اللي يري هذي هلجن إيوه هلجن يهلاك بالله. هيا. هلجن يهلاك وحي إيش يجين مدكور سجى إنه كورة عن قلدي كلنا أيوجنا وكورة على نبدي كراني. هيا. waxaan ka rabaa maadaama muddadii dhamaatay oo xaaladii hadda mutakororsi aan galnay awalba dalkan walaaq buu ahaa xaalkiisu iyo wixiisu barnaamijkiisu wuxuu ahaa barnaamijkeena hadda keena inaan wadana maamar walba muhiim ah waxaan ka rabaa niyow marka anagu shaqadeenu waa hawsha qayn ee ka shaqeyso واقرت. maadaama hawsha qayn ka shaqeysa tahay waxaan rabnaa inaan dalkan aan xaraashno awalba hore loo xaraashay waad ogeyd nimanka xaraashay oo ku sameeyay ba xilligan waxay goobayaan madax qaarkoodna xildhibaanay noqdeen anaguna waxaan rabnaa inta u dambaysa inaan sii daba tirno wadankan waan ognahay waxa ku soo fooleed dalka wal kala qaybsanaya waxa weeyaan dalalba u heshiiyay anagoo ka baahan inaan isaga tagno marno anagoo wax ka meelaysanaa rabnaa in lagu soo wajahay ruushka waad arkaysa Ukraine waa weer anagana waa ogta ciidan oo ku soo socota adeero marka anaga wax qabadkeeno waa ka shaqeysa hawsha qayn waxaa ka rabaa marka inaad intaad aado hanti dhowraha guud ee qaranka inaad wax ka soo dhaadhacsiiso qoladii haata waad ogeyd inaan ku guuleystay konton iyo 7 inaan ku guuleysto aan meelaystay waad ogtahay kuwa kale aanay emaileysan yihiin wadankan anigu meel fiican baan ka gaarnay hawshan aniga aduna si fiican baan iskula soconnaa waxaan ka rabaa hanti dhowraha guud ee qaranka intaad aado inaad asagana ka soo dhaadhacsiiso wadanka badii iyo biriga iyo dhulkan dadka masaakiinta oo degan yihiin inaad ka barakiciso oo asaga aad ka dhaadhacsiiso oo awood adeegsato intaas aan ka rabaa waka أنا أتجي هذا أتجي. dhaqsaad hadda ka rabaa inaad tagto ma rabo waxa in si kale mugdada noo xaqo 20 ka bari وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدن يور. وحشر الشيطان موجي. مدن وحنك السعودة حاجة. الوزير كان فرنتا أسا أمر سوسي waxaan doonaynaa hadii ilaahay yiraahdo wad ogtahay hawshan ku jirnaa wal adag bay ahayd wasiirka koowaad wuxuu sheegay in soo waxa faraha ku haynay muddadina dhamaatay meeshana Soomaalidu waxay ku maamaadaa baxli Soomaalidu been way sheegtaa laakiin been ma maamaado waxa Soomaalidu waxa lagu maamaadaa waxa adduunyo dunidan ka buuxsaa ka tagin adoon ka tagin ka buuxsaa adoon ka tagin waxa la rabaa adaa qacanta wax walba ku haya bad iyo biriba ila soo xaraashto masaakiinta meeshan degan ka qaado dhulka badan awalba badanagu waxaan ka rabnaa inta yartaa oo carruurta noogu dabaashaan inaad soo iibiso de markastoo kuwii hore unba ku fashilmi lahaay ku fashilmayne inaad noo soo xayuubiso wax yar baa dhiman waa biri bas dhiman baa la yiri jeebka in la soo buuxiyo la rabaa horta niyo fadhigi iyo hawshaad igu timid waa aqbalay saad igu yeedhay waan fadhiistaa anu waana ku sugayay adaan ay soo wacay yiri hawl baan ku hayaa erayga adiga la hadlaysid iyo waxa Soomaali matayna waa laba kaaf oo kala dheeri ah hadii ninku soo diro ku dhulka iyo xaraash iyo haduu ku badda iyo xaraash anu adeerkii badda xaraashayeen ma kii biriga xaraashayeen ma shaqo marka qaldan baa laga soo dhaadhacsiiyay ma ahan aniga midka badda xaraashaya ما ها أنا متك بريق حراشية هانتي ذا قرن كان أدر حلقة فضو قاضني هرا الله قاضن لها مركا wax qalad laga soo dhacsiiyay qaladkaas wixii ku dhibay fulinta koowaad ha ahaado ama ha ahaado xukuumaddiina dib ugu noqda warmay war adiga wad ogtahay dadkii hore un baa ku fashilay ma artay maanta waxa la siinay waa xildhibaan noqdeen madaxdu sharaxan yihiin war adiga waxba ka soo gaari maayaan adiga meeshan waxaan rabnaa inaan wax ka qabsano intaan ka tagin maxaan iga soo gaarayo maxaad iga soo gaarsiin ka dhananiga adiga ma adoo baahan bartaan dalkan marka waxaan u soo qaad kitaab jaamacahan u maray inaan cadaalad ugu shaqeeyo shaqooyinka aad ka hadlayso ninkan uu ku soo dirsadayna waxaan waan aqbalayaa ma ahan wax Soomaali aqbalaysana ma Soomaaliduna ma ahantii 2008 iyo badahooda intii la gato iska hurday Soomaalida soo jeedo dawladnimada fahansan weey adiga ninka warka ku soo sheegayna wax adeer annako aan qaadan kariyo waxaan qaadan doona midna ma aha war indhahaaga arka adiga indhahaaga waa arka nin tagi doona wad ogta xilkana waa laga qaadiyaa waa laga xayuubinaya joogi meesha meeshaan iyo dan baa kugu jirta inaan maanta inta yarta waan ku ogolnahay inaad qaadato maanta
qarash bedelisa waxba helaysa laakiin ma helaysa xilkan oo kadisa waa laga xayoominaya waxma ku sheegaa adiga ninka ka koreeyaba adeer hadii laga amar qaadanaya adinku xukuumadda in ka sakaysa kama amar qaadataan midda kale jawaan maran baad waxa la soo gasheen siyaasadana jawaan maran lama soo galay qof dheregsan oo fiican oo barwaaqaysan baa siyaasadda soo galay laakiin qof oo man haduu siyaasadda soo galo adeer jawaan maran buu la galayaa masaakiinta wax hadda u leediin masaakiinta waxaan gadanaynaa dhulkeedii waxaan gadanaynaa danta guud warheede miyiina kitaab jaawacayna soo qaadan wariyaha ma ku sheega Soomaalida wax ku mahmaada war imisa kitaab jaawac la maray baahan badar loo madhi Soomaalida ku mahmaada nin baahan badar loo madhi nin baahan baa ku soo diray adna waad baahan tahay shaqadaasuna adeer aniga hadii ciidu xil iga qaadayso madaxweynaha qaranka iyo dawlad xukuumadaas ay qaadi kara cid wax hal kala qaadama wajidaba meesha adinka boob ku joogo cid boob ku joogo ka qaadis هذا نكل وريجي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله في عين هاي سو ما في عندنا ولا ليال وحشر يا شيدان ما أقول أنا اسوقين ياري وادوكتهين دورشدي إني جبت هاي حال كيدي وجب وأنا أنت أنا إن لا تشوقي أو إذا لا قبل قابنا يي أو إن لا ودي نواد أكتهين إن عن ميل في عن كسر شيدان waxa in la waday oo waxa la habeenayay oo waxa la toosinay waxa la qabqaaminay aanu ah hadana aanu joogin weerka iyo dawacada iyo bahalada in ka dirgilaha intaas waxa horeynayo hortaagna aanu aha waxa in ka rabaa maantay doorashadii xilligii muddaxileedka loogu talagalay waa dhamaatay waxaana la rabaa qof walba maxaad qabato ku soo gudbay in la yiraahdo oo lagu xisaabtamaya حسابته مانتا أدينك إن كربه وحويان إن ترهدان وحقبت كيجي إن تلمانتان أو أن موجسان أو سيدي أنو إن كوقبته إن كوجوري أذكر مانتا يجورتان أيان إن سكوكين يري ما دابا أدتك وراها هاي مجالدا عاصمة شوقي هيدين دتك متقعنا إيش الربي إن لك حيستول لك رياع صدق هيدين أنا أنديدو قاشانك وضروري maanta waxaan rabaa wax qabadkeenii saas u soo baxay cid ugu soo horbaxdo soo gabagabaysay waa adinka aniguna waxaan rabaa adinku aniga itoosinayo oo xurmaynayo oo xaq dhowray inaad tiraahdaan wax qabadkii koobad uu ku guuleystay kuwa labaadna ayaan ha sii socoto inta soo gabagabay inaad tiraahdaan adinku aad garab istaagtaan maanta garab istaag baan ku weyn ma maqlaysaa horta garab istaagaaga iyo hawlahaagu waa arrin ku gaar ah su'aalaha hadda noo weydiisayna waxaan isku ogeyn ma aha marka waxa jira Soomaalida waxay ku maamaada bismillaahir rahmaanir rahiim horta su'aasha aad noo weydiisay waa maqlaynaa waa dhageysanaynaa xildhibaanadiina meesha way fadhiyaan Soomaalida waxay ku maamaada ninka wax qabadkiisa in la sheegaa fiican in asagu sheego wax fiican ma aha hatta wax qabatayna Soomaali baa ku sheegaysa waana kuma sheegan indhaha Soomaaliga marqaati u ah xildhibaanadina waa kuwaan afkooda la joogan waxa tiraan soo saaray waxaana soo saaray odayaal dhaqameed waxaana soo saaray anagu waxaan nahay dalka mid ah dalka Soomaaliya oo maamul goboleeda shanta Soomaaliyan ka mid nahay manihin qola adiga geedka ugu xareysan sanduuqad kiraa ku manihin ma garad meesha su'aasha kala ku soo dhadha waxa tiri muujiya inaan wax qabtay adeer Cabdullaahi fiicana iyo Xasan Geesa weyne ha ku muujiyaan iyaga aan cidla ku garaacay labadaas in horta ma ku muujiyaan ba muuqanaysa ayaga walba dhiiqo lagu ku gashay ma jaabeesan meel kale ka mulcaleeyeen ba Soomaalidu ku mahmaadaan adal meel kale ka mulcaleeyeen anaka Jaanis niga heli maysid waxaan ku leeyahay wax qabadkaaga Soomaali waa u marqaatay hadii wax qabatay qof aan waxba qaban adal dadka inuu yiraahdo waxbaan qabto waa been walaalow horta waa mahadsantiin xildhibaanada hore waxa loo yiri Soomaalidu ugu mahmaaday ciirtaada dhamac caydaada yaqaan marka anigu dawacada iyo weerka in ka ilaaliyo in soo baxshay ayaad intaad igu ixtiraami lahaydeen xitaa codkiina aan cidda raba inaad siisaan ayaad maanta waxaad igu jawaabteen waba Soomaa waba hadalkiinu ku soo gabagabay Soomaa waayahay taas waxaan ogaanaynaa horaha hadda Soomaalidu waa iska hawlo badan tahay de marka qofku kugu dangaaro wax allaale iyo wuxuu rabo ayuu sameeyaa anigu maanta ixtiraam waxaan u lahaa inaan codkiina isiisaan qofka raba aan siino shahaado suura ma dhageysan karnaa inaka xildhibaanada sharafta leh ma fariisataan anigu horaan waxaan u ogaa waxaan maleynayay meesha waxaan maleynayay inaad intaad ii timaadaan aad codka xitaa isiinaysaan laakiin uma maleynayn inaan wax qabadkaygii aad qarinaysaan oo duudsiyaysan marka duudsi baad la timaadeen yaa ama ku sheega walaalow marka saas maxaa kugu wada wax ma ku sheega inii horta waxa la yiraahdaa wax lagu sheegi jirin wax ku sheega hadan wax lagu sheegi jirin aanu ku garaaci maayo
xildhibaanadii baa u adkaysan waaya waxaad sheegaysa war xumadaada iyo hadalkaaga iyo wax qabad aan jirin qofka adeer ma run ma been baa la sheegaya mindhaha la isqabanaya hadda xildhibaanadu ku shalay markaan anigu hoolka imaanayo in soo imaanayay kuwii shacabka ii garaacayo codkaan ilaaday isiinayay Soomaaliya waxaan in sheega qaadanayay Soomaaliya markii codkii aad ku guulaysateen miyaa aniga meesha leeyahay tagay cidlada wariga ma ku sheeg meesha cidlada aniga leeyahay tagay aniga dulqaad loo hadda kula fadhiya dadkiiba ka tagade Soomaali waa ku ogtaa hadda Soomaali waa naqaanaa abaal ma gasho ninkii bahalkii dawacada ka ilaalin jiray baan adigu ninkii igu xigay baad ahay ku xigeenkayga aad ahay maxkamadda ku sugaysa maxkamadda ornagatay